kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa horseed fanay maadiya fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeyso aad janalkeena soo booqato subscribe inoo saar furo gambaleelka si muuqaaladeena dambe ay ku soo gaaraan daawadayaal muuqaalka waxaanu ku eegi doonaa 10 waxyaabood oo qarsoodiya oo aad u la yaab badan oo ku saabsan jilaaga Irfan Khan oo aadan ka ogeyn. haddaba Irfan Khan waxa waa jilaa shirkadda Bollywoodka kaas oo geeriyooday 29 bishan Abriil ee sanada 2020. tobankaasi waxyaabood ayaanu ku eegi doonaa. haddii aad ka hesho ama aad u baahneed xogtan like inoo saar muuqaalka siina share galay oo gaarsii saaxiibadaada mahadsanid. waxaa jira waxyaabo xaqiiqooyin oo aadan ogeyn. waxaan sidoo kale ku soo koobi doonaa taariikhda iyo waxyaabo taariikh ah oo ku saabsan Irfan Khan. sidoo kale Indian cinema waxay ku qasaareen ama ay waayeen mid ka mid ah aktaradii ugu jirka adka Irfan Khan 29 bisha Abriil. noloshiisa oo idil iyo xirfadiisa cajiibka badan marka loo eego waxa Irfan Khan uu ina siinaya wax qabadyo la yaab leh iyo xaqiiqooyin aadan ka ogeyn aktarka. Irfan Khan waxa uu ku dhashay ama uu ka dhashay qoys boqortooyo oo Jaipur ah. hooyadiisa waxay u sugnaatay qoyska la yiraahdo Tonki Hakim. waxa uu ku guuleystay abaalmarin caalami ah. magaciisa saxda ah waxa uu yahay aktarkan Irfan Ali Khan oo kadib magaciisa u soo gaabsaday Irfan Khan waliba magaca shaashada. Irfan Khan marnaba ma uu doonaynin in uu noqdo actor. waxa uu aad u jeclaa cricket. waxa uu doonayay in uu noqdo cricketer. hasaatee waalidiintiisu marnaba ma aysan xiiseenin. kadib markii uu qalin jabiyay actorka oo uu sidoo kale helay scholarship waliba uu ka helay iskuul caalami ah oo la yiraahdo National School of Drama sanadii 1984 waxa uu halka ku qaatay dibloomo dhinaca daraamada ama sida wax loo jiro. waxa uu dibloomadaasi kadib ay ku kaliftay in degree uu helo. Irfan Khan waxa uu u sii jeestay dhanka iyo in uu xiiseeyo wax jirista. kadib waxa uu go'aansaday inuu actor noqdo. markii uu yimi magaalada Mumbai Irfan Khan waxa uu ku shaqeynayay isaga oo ahaa nin hagaajiya air conditionada guryaha qaaliga ah ama guryaha jalayaasha markaa ku jira ama qaboojiyaasha mukeefyada. actarka sidoo kale waxa uu wareysigiisa ku qeexay Rajesh Khanna in gurigiisa in uu ahaa guriyihii ugu horeeyay ee uu booqdo si uu mukeefyada ugu soo hagaajiyo. filimkiisii u horeeyay waxa waa Salaam Mumbai waxa la sii daayay sanadkii 1988 kadib sanadkii u dambeeyay ee ardaynimo iskuulka National School of Drama ama daraamada iskuulka uu ku baranayay. waxa uu sidoo kale uu helay ama loo magacaabay abaalmarinta Academy Awards. Irfan Khan waxa uu guursaday Sutabazikar oo ah sanadii 1995 ay isguursadeen. sidoo kalena waxay isla hayeen kuwa qaybta daraamada iskuulkaasi ka barta. waxa ay u dhashay 2 canug oo lagu kala magacaabo Pabil iyo Ayaan. intii lagu guda jiray xirfadiisa waxa dhacday in qaar ka mid ah filimadiisa ay gedmi waayaan. tani waxay ku kaliftay in uu ka quusto xirfadda jilaanimo. hasaatee kadib markii uu la shaqeeyay Azif Kabadiya filimkii The Warrior waxa ay maskaxdiisu go'aansatay si dhameystiran in isku bedesho. waxaana uu go'aan ku gaaray inuu sii wato xirfadiisa jilaanimo. Irfan Khan doorka hogaaminta waxa uu ka ciyaaray sanadii 2001 filimkii taariikhda ah ee The Warrior. waxa uu noqday mid caan ah. waxa uu ku guuleystay abaalmarino. waxa uu noqday filimkii ugu horeeyay ee ganacsi ahaan uu hogaamiyo ee markaa isna guuleysta. waxa waa sanadii 2005 filimkaasi oo la oran jiray Rock. Irfan Khan intaa kadib doorar caan ah ayaa la siiyay sida filimkii Hollywoodka directorka caanka ah Christopher Nolan filimkiisii Interstellar. waxa ay filimkaasi u bedeshay mid box office-ka guud ahaan caalamka qabsada. Julian Roberts oo shirkadda Hollywoodka aktaradka waxay aad uga mahadcelisay waxqabadkii la yaabka lahaa Irfan Khan ee filimkaasi. waliba habeenkii Oscar-ka ay ku guuleysanayeen Irfan Khan uu joogay la yaab ayay noqotay. laakiin arinta kale ee aadan ogeyn waxay tahay in hadda ka hor lagu xiray wadanka Mareykanka airport kamida airportyada wadankaasi ku yaala. waxaa loo cuskaday magaciisa Irfan Khan oo ah magac kamida magacyada argagixisada qaaradda Aasiya. Irfan Khan waa actorkii Bollywood ee ugu horeeyay ee isagoo
hela ama xiddig ka noqda 2 abaalmarin oo academic award oo isagu uu ku guuleystay Life of B iyo filimka Islam Dog Millionaire oo sanadii 2011 irfan sidoo kale waxa uu helay abaalmarinta Padma Shri waxaana uu ku helay waxqabadkiisii muddada dheer ee dhanka jilaalnimo sidoo kale waa muslim ka soo jeedo qoys islaama waana jilaagii geeriyooday 29kii bisha Abriil sanada 2020 waan filayaa xogtaasi inaad ku qanci doonto daawade subscribe saaro channelkan horseed funny media oo kamid ah channelada ugu caansan arimaha Bollywoodka iyo arimaha musalsalaadka iyo guud ahaan waxyaabaha xiisaha leh idin soo gudbiya mahadsanidin.